السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا السلام يا أصحاب تيد قيمة على مال والبادة دونك كجوكتان وحان إذن الله يهي مالنتو هيدين وعناتو وحان في ليينات عافي مادي بشي برواقو كجوكتان مال والبادة دونك كجوكتان ما انت وحينو بالإسرائيرا أركينا دمرك الصوماليات فرينتاني waxay ku socotaa dumarka Soomaaliyeed iyo sida ay moodeen waxay tahay ilbaxnimadu qaabka ilbaxnimadu tahay ayaynu rabnaa inaynu maanta bal isla eegno iyo waa maxay ilbaxnimo bal siday tahay maxaysa tahay ilbaxnimadu ma wax xunbaa mise waa wax wanaagsan taas ayaynu rabnaa maanta inaynu bal isla qaadaa dhigno aynu isfahansiino waxa ay ilbaxnimadu tahay maanta waxaan aad iyo aad uga xumaaday fariin soo gaadhay gabadh fanaanada oo rabin inaan magaceeda sheego balse aad dibka ogaan doontaan in Snapchat-keeda la jabsaday intiina badan way aragtay ila tahay maanta Snapchat-kii markii la jabsaday waxyaalo badan oo anshax xumo ah ayaa halka ka soo baxay oo waliba la ummadda Soomaaliyeed kii uu soo gaaraa walaalo ha faafinin ma qurux badna waa walaasha waa habaryarta waa eedada waa yeeyadaayoo kale waa gabadhaadii kale xumaantaas haday ku soo gaarto min fadlag ha faafinin barteeda ku delete garee taas oo ummadda Soomaaliyeed intaan leeyahay ta kale dumarka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego waa maxay ilbaxnimo number 1 maxaad ka faa'iideysaa taleefanka aad ku urursanaysaan sawirada anshax xumada ah sawirada anshax walaalyaal oo sheer gareeyo dumarka Soomaaliyeed meel bay joogaan gaarsiya ayaan idin leeyahay la shaydaan ku yaale dumarkii way baayeena waa balanbalay raguna ka sii daran raguna waa kuwa ka liito gabdhahooda saaciibahooda suuqyada u dhigdhigaya waa tahay ninku kuma heleen ceebtaada hadaadan adigu meel ku kaydin hadaadan bank dhigan sawiradaada anshax xumada ah ninku kuma ceebayn kareen ayaan leeyahay dumarka Soomaaliyeed sawirada maxaa horta ku galiyay waxaan idin weydiinayaa sawirka ninku ama ha ku qabo ama saaxiib la ahaw horta totally waxa xaraan ah oo dambi ah nin inaad asagoon ku qabin aad wax la samaysid taas horta totally qurba joogto iyo meel walba hadda Soomaali joogto diintii ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad bay ugu dabar yartaa aad iyo aad bay ugu liidataa dhaqanna ma jiro dadna dhaqan bay ku xishoodaan dadna diin bay ku xishoodaan labadiiba waa laga tagay haddaba waxa la mooday ilbaxnimadii naagta qaawan naagta khamriga cabta naagta balwad kasto xun leh naagta nin kasta noocu yahay la tumata noocaas ayaa haddaba ilbaxnimadii loo qaatay haddaba ilbaxnimadu nooca ma aha walaashayay ninkan Soomaaliyeed markuu fiidiyowga ka duubanayo iyo markuu ku de wuxuu doonaha kula sameeyo ano afkayga ma soo marin kare waxa weeye riisankii uu handicap ina tahay buu ku ogyahay riisankii uu kugu sasaban lahaa oo uu kugu oran la gabar reer magaala tahay gabar ilbaxa tahay gabar kana tahay because wuxuu rabaa inuu wuxuu doonayo uu ka helo idinkuna handicapada qonaatihiino ya ilbaxnimadii baad moodeysaan war waligeed ba reer midi ah oo hadaad doontid heblaayo waa reer magaal heblaayo waa ayso ma ogid heblaayo way reer magaal iyaduna markaas inta isku taagta kaba dhaadheer inay handicapad tahay ba waxay isleedahay kii ku yiraahdo reer magaal baa tanaag bal ka dhaxdaata يا مسكينة يا حشيشة لا إله إلا الله رير بالمجال نمدو والله دشا الله يسكمل دقدقو مي بعد كتم هدا دونتد واحد ربطة إنا سيدك دقة رير مجال كن قتت مركز وحكومة سبنا يا سيدنا تلفون قاركود يجو أقبل على قدوبة فيديو يدا قبلها صومالية قاركود يجو أقبل على قدوبة فيديو يدا وحانري والله يا أبي هدبة وعجيب يقول نقطين inay sacsayihiin ya ninko amaana wuxuu dhahay xamar soo suuqa maraa uu jiiro galeno jiirada markuu galay macawistiisu madaxa ku duubtay meeshii buu ku saxarooday ninkii war hebelo baa la yiri maxaa meesha isugu qaawisay ariga madaxii buu qarsaday macawistiisii ayuu madaxii wajiga ku duubtay ya maxaa isugu qaawisay yiri meesha futadaadi u soo dhigtay banaanka wuxuu yiri ya faala la ka saay futama la ka saa فولا لك ساي فتما لك سا كاسا إذن دابا إنه حتى دينانا وانو ملاينا نكاس وجهي قرصو أيو قرط إذنكو وجهينينا قرصانين أو وحبا قرصانين أو اللهم على بيجه أو سيدي الله إذنكو أبو رأي
baad sawirra soo garooska duubi ninkan horta wuuba ku qabaaya riisanka horta sawirru duubaysid baan anigu fahmi waayay sababta aad sawir isagiyo waxaad bahaysataa anytime any day anytime aad rabtid aad helaysid maxaa fiidiyowgan baas ee taleefanadeen anoo hadda kayga yaan siiyaa baasboorada wallahi inaydan ka heleen midaan xitaa madax qaawana يا ما وحوا يدي بلان مركب بحال كيره هدو كالنا حتى بريت القادنيو انت باس وركي وحل بلغا بدشو بلايدا هذا سو فقفقايو war markuu dhaqanku inagii hatta waxaynu la yaabanay ubad yar yar oo dhulka gaalada ku dhashay baynu caynaa heblaayo ubadkeeda waa sida heblaayo ubadkeeda waa kan heblaayo habrihii waa weynaa ee 40 plus 50 plus ka ahaa baa walaale suuqa yaacaya iyagii baa daroogadii caruurtii kaga horeysay iyo wiilashii ay dhaleen iyagii baa khamrigii kaga horeeya iyagii baa shiishadii kaga horeeya iyagii baa balwad walba xunaagta sharafta leh wixeeda way qarsataa ubadkeedu xitaa ma ogaadaan dadkuna way kala xishood badan yihiin xitaa kuwa gurigooda edabta leh oo dhaqan kale nimana u tagin quruna u tagin guryahooda guryahooda ku samaysta waxay rabaan laakiin aan adduunka public oogay Soomaali markii la joogay 1991 ka hor dumarka intooda badan waa qayli jireen ogeyd wixii madaxdu qabtay iyo wixii kale caadiga ahaa nus waa qayli jireen balse wax la ogaa iyo meel ay gabadhaasi ku qayasho iyo meel ay istaagto cid ogeyd ma jirto haddaba idinku ku wiinan reer miyiga ah oo gaaladiina ma idin noqon islaamkiina ka tagtay waxaan maqli jiray wadawacadii socodkeeda ka tagtay kii nabigana gaari weyday sallallahu alayhi wasallam kii nabigana gaari weyday ayaan maqli jiray war waxaan digaagu xitaa saa u ilbaxdeen digaagu ma ilbaxo digaagu wallahi billahi digaagu xoolaha idin dhaama xoolaha baa idin dhaama si wixii u xunay wixii u samay kala garanayaan naagahan waaweyn la 40 plus ka 50 plus ka 60 plus ka isqaawinaya la hadhow nin baa naga jabsaday taleefankayagii nin baa naga jabsaday taleefankayagii ninku kaama jabsadeen hadaadan adigu bangiga wax dhiganin bangiga taleefankaaga hadaadan wax dhiganin ya maxaa tiri nus saaci baarkii kugu dhamaa may waa socdaabada anu jidkan saaranay wali baarkan ma gelin ما شريف اللي بارك المجلي مركز دمرك الصومالي وحنا لا ولا على نمك وحبها كومبلين قريننا عقل حمد هذا أيوك وشيكتي يسقى ربع إنه كاد لما يستدنه ولايه ببهال أمانة هرتكوج رجية قبل بالبحات قبل خير مجالات قبل كيرات هبلايو وعطن هبلايو وخيرمي هبلايو وكان هبين بانو قبل إسلسعني قبل يبنين كثير بواي نك وكان naadu naga hardee naadu naga kareede gabadhan iyada na wala na ninkan inaayu ku marsanin naayu kaarka casay yar ka marsanin na waxaan saqajaanka ah ee foosho xun ee sidan ay isagiiba dayacan ee qaabka daran na iska daa naayu ku marsan na hooy ka joog adigu habeenkii ka soo furfuray laakiin dib baa waxaan ka maqlay inay israaceen oo de kaarka yara karadidka yaraana laga marsaday ma fahamta marka waxa way dumarka Soomaaliyeed walaal haday reer magaalnimo jirto aqal xumadiina ka yaabo haday ilbaxnimo jirto waxa way walaashi muxuu keenay way okay wiil aan asxaabna han keenayay walaashaana keeno ilbaxnimada dhinac ka gali kaliya ku filan adoo yiraahda ilbaxnimada dhinac ka gali walaashaana walaashi iyo naagtiisa iyo intuu la yahay ina sharaf u lahaadana guryahooda fadhiyaan buu rabaa adiga taqaan yahay dhagta weyn leh waxba kala ogeynina reer magaal baahtalon wixii ninkii bahal isaguba de aadan kabahaaga u dhiibateen oo qasnaas ah oo wuxuu og yahay aanay jirin baad wait a minute fucking hell sorry baad daba ordaysaa warkabahaaga ma gooyo adigiba hadda waxaad samaynaysaa mid shanaaga soo fureen oo la soo eriyay oo la soo baaciyay oo caruurtiisa haysan kari waay oo noloshiisa qabsan kari waay oo loser baad xiraysanaysaa markaad xiraysatid oo guursatid baad hadda waxaad oranaysaa nin baa xumeeyay kuma xumaynina walaal adaa is xumeeyay sama ogid adiga ayaa is xumeeyo awalba kartoon xun oo la soo dhamaystay oo dulufa oo dibadda la soo dhigay intaad soo qaadatay sharooto ku dhidhajis oo sharootaysato ma faanta de sharootada imisa sharootada ku hay sharootada waa duugoobaysaa way dhacaysaa marka dhacdan sidii uu iska goobaya u duugoobaya hadana
وسالكيسي وكبلابيا لا دقن حمو شن عقود هore kaga yimi iyo edab daro marka waxaan idin leeyahay daciifnimada anu maalba facebookayga ku soo qoray meesha daciifnimadu idin kaga jirto ban ilaa hadda la yaabanahay anigu sawirada seebaad ku keentay 40 plus baa tahay walaal 50 plus baa tahay saad ku keentay inaad sawir intaad meel istaagtid oo isqaawisid ama nin kugu maran war dadkani miyaanay arki jirin nin iyo naag isqaba miyaanay aqoonin ninkii naagta isqaba waxay sameeyaan miyaanay aqoonin ilaahay guri beydka muxuu sameeyay maxaa banaanadii baaga laynoo dajin waayay baaga iyo banaanada walaalo maxaa laynoo dajin waayay maxaa laynoo dajin waayay halkan UK beer waxaa jiri jirtay for life laysku arko samaad garan maalmaha ka mid ah bahal nin oo meesha marayo hindi Asiana oo meesha maraya naag halkan saa u jiifto oo ninkii sugaysan budusha kaga dhacay markuu dusha kaga dhacay laysku balabalo ninkii ugu yimo booliis isugu yimiyo la isqabsado baagaas la baloogay baagiiba la xiray sababtoo ah nimanku dareen bay leeyihiin nimanku wixii idin ku dhaca idinka ka masuula waa ku joogay sharcigi ka noqday in iyagu qaaqaawan wadada raali noqdo walaalayaal sorry waxba iga soo galay iga raali noqda marka waxaan idin leeyahay inay idinaan dhaqal lahayn hadhowna nimankii baad complain gareynaysaan hadhowna nimankii baad ka sheegaysaan hadhowna nimankii baad oranaysaan waxbayna yeeleen maxaa marka horeba maxaa sawiradan baasi horta taleefanka yar ee bari laga xadi karo aad walaal ugu guranaysaan ban aad ula yaab hadhowtan hebel baa soo dhigayo intuu ku soo dhigo waliba wallahi banaanada la dhigdhiga baastariinta kala fitada weyne kaaga daranta waxay qaawinayaan la hoogado baayay haday naag dhuuban tahay anoo miiran baa isa soo qaawinaysanaa maxaa bahalkaaga balqay iyo calooshan balaqday iyo haraga iyo bahalada kale labada liimood ee haraga ah iyo balaayada isku wada dubadhacdaad moodo iska rogo qaraabtay oo meel ku qalibantay yaa waadiga u ege yaa iska rogo qalibantay waadiga noqday maxaad qaawinaysaa horta raggii tusaysaaba wax nafla hoosaa dhexda u xidhantaay oo dhuuban oo jamjam hadaa tusaysid xitaa maxay kale fiideo aan maalin dhaweed arkay ina gabar meelaha ka qaylinaysay hashaagtu waxay dibadda soo dhigtay subxaan anoo naaga ka wususay wallahi bila anoo naaga nimanku maxay ku falayaan wax isku rarmayood moodid yaa buulaxuube iyo yaa isku raran iyo dulaad moodid buulaxuube iyo isku raran iyo meelo lagu bacayood moodid in saa waa hore laga maxaanu niraahnaa meelo noqday maxaad horta ragga ka tusiba habaar qabto waad baharagowdo 10 cunug baad dhashay 5 baad dhashay 4 baad dhashay gabigaaguba saasaad isugu dhacday yaa waa kuwana waydinka bacay oo balanbalay hal idinka soo saaro walaale waa la iga jabsaday anu ma aqaan ansha xumo dhilanimo qaxbanimo qurunimo anu qaan anigu saqajaanimo reer baadiye ilbaxay baan anigu taasoo aqaan taleefanada wax ku urursata anigu reer magaal baan ahaa bahalkii dabadii horta iskaga shubay bahalkii kale saa yaali kana yaali markaas marba intuu meel ka taabto wallahi reer magaal baa tahay wallahi adaa ugu ilbaxsan dadka la daciifsanaa my god magaalo dadka ka yimi waa la garanayaa magaalo dadka ka yimi waa la garanayaa dadkii magaalada ka yimina dib bay u isu astureen iska yara qaawanaaye saraawiisha gashan jiray markay dhalinyaradan xamarka laga imanayay dadku waa madax qaawanaa surwaal baa la iska xiran jiray dadkii magaalada ka yimina markay dhulka yimaadeen waaba is astureen kuwii miyiga ka yimina waa isqaawiyeen waad yaabaysaa bismillah gabar baan gobolada dhexe ka timi baana jaar noqonay tiyo jalbaab wadataan ogaa maalintii dambe waxay samaysay waxaan arkay gabadhii xijaab yar xiran maxaa xijaabka u xiratay wallaahi madaxa xanuunayo waa kaasoo dhakhtarku wuxuu yiri ana dhakhtar la xijaab dhig oo iskaafkan yar xiro waligay ma arag ma garat waxay tiri dhakhtarkii baa madaxa xanuunayo wuxuu yiri waxaan weynaa wadatid weyn ay gabadhi waxaan arkay maalintii dambe haddana sanad kadib tiyo kan dhigtay oo kan intay duubtay dusha ka xidhay ma garat dusha saa ugu xidhay intaas iyo qoortiiba qaawisatay waligeed xamar ma arag oo magaalo ma arag tuulo ka timi tuulo marka dadka noocaas oo kala ayaa adduunka rogayo reer miya caruuraha yar yar maxaanu kala yaabnaa wallahi anigu lama yaabo markaan arkay naagaha qaar say u dhaqmayaan iyo sida yihiin iyo qaab darrada naag walba sharafteedii karaamadeeda walaal way qarsataa naag walba
waxay samayso way qarsataa cidimo ogaato kuwa 10 balwadood leh oo 10 wax leh oo adab leh baanu naqaanaa oo sharaf leh oo cidina ogeyn laakiin kuwa adduunka isdhiga ee publica iska dhiga ee suuqa iswada de waa kuwa miyiga ka yimi baan anu aaminsanahay marka waxaan leeyahay dumaro naagta sawirkeeda la soo dhigoy ha xabaadin hadaad isdhaafsanay iyo hadaad miyir qabtay hadaa suuqaagii xoolaha banaanka soo dhigtid yaa suuqa xoolaha laba orgis ku dileen baad moodaayo waxay soo dhigayso caloosha iyo futada iyo labada niimay soo dhigayso meesha iyo waxaad moodaa suuqii xoolaha dagaal ka dhacay rafaadka iyo silaxa iyo saxariirta iyo waxa kala daadsan iyo waxa kala hargooba iyo waxa kala naasidiina kala isu nafaqeeyo oo isu hagaajiya oo isku qurxiyo oo isku naftaada ku mashquul why you been crazy for a man nin baad ku waalatay without him ma noolaan kartaan ba why adigu noolow marka hore noolow kadib ayaad nin kala jeclaan kartaa traffic baan galay ayna halkan jaraa ya wallahi magaalada traffic baa ka jira marka waxa weeye isla marka hore adigu walaalo isjeclo oo naftaada jeclo adiga dayaca iyo foolxumada iyo sidaa tahay aad noqday garay qaar waxaad arkaysaa magaalada marayo wallahi garay bay noqdeen fitamiinkooda ma ilaashanayaan nafteeda ilaashan mayso gurigaaga waxa ugu quruxda badan dhigan maysid naftaada haga ninba isu dhigsa ninbaan arooso gurigii baan bedeshay ku leedahay oo maxaad adigu marka hore meel wanaagsan u seexan weydi maxaad adigu meel qurux badan u seexan weydi maxaad adigu naftaada marka hore u ilaalin weydi intaad balaayo iyo meelo baas ku mashquulsan tihiin walaalow ya nin baad ku qafiifteen dumarow anigu Soomaali markii la joogay dumarka sida ma ahaan jiray I don't know why gabigoodu bal iyagu dhan aan control nin because tana ku faantay sawir bay la soo gashay halkan ay dhigtay halkan ay istaagtay so aniguna waa inaan soo galaa aniguna inaan kayga buunbuuniya aniguna ka hadda waa mid dilayo rafaadinayo hoojinaya aniguna inaan noloshoodiba caruurtooda ma oga cilmi ma bartaan aqli ma jiro caruur ma oga xoolo ma jiro ninka ay saa ugu waalanayso waa ninka berintu shirmaanta yar ka furta tu kale la aadaya maxay dahay doqtiga waa isa sabtaa ninka waan jeclaa no horta idinka jacaylka Soomaalida idin sheegaya Soomaalida jacayl uma ima walaal mar buu si yar fudud baf sidii karoonahan oo kale ku soo marayo wuxuu ka qaatay cilmi boodhari iyo laba qof oo kale magacooda hadda iga maqay cabladu mid carab bay ahayd ya Soomaaliya markaas huf isagoo karoona abu soo maray karoona yar buu ku soo maray ma garad cilmi buuna kala tagay dibna idin ma soo eegin jacdu xitaa idinkuma harin oo jacaylba walaal ma taqaanaan maxaad u abayuusaysaan jacaylka maxaad u dhibaataynaysaan jacaylku waa ixtiraam waa wanaag waa sharaf naag baa waxay leedahay ninkii baan jeclay wuu dilayaa wuu garaacayaa anu jacayl la isdilo dee weligay ma arag jacayl dad isdilaya yaa waxaa tiri shankaroon ha maanaa ku qafiifine runtii waxa weeye waa waxaad samaynaysaa naftaada iyo quruxdaada iyo caruurtaada iyo ninkaagaba mas'uul baad ka tahay waa run balse see mas'uul ka tahay intuu kuu sameeyo in la eegu sameey ninku dilayo waxa leedahay jecel dad baa waxaad dadka inay Soomaalidu mental noqotaan idin sheegayaan waxay ku oranayaan ninka ku jecel baa ku dila aniga jacayl la isdila weligay ma arag walaal noloshayda meel jacayl la isku dilayo ma arag iyo meel la isku rafaadinayo labada qof ay isjeceli waa labada qof ee wanaag dhexmaro naxariista qofka markaa u naxariisatid oo wax badan u sameeysid oo soo dhaweysatid oo wanaag ka arko ayuu kugu soo dhawaanaya oo ku jeclaanaya laakiin nin baf iyo buf kugu haya waan jeclahay anigu taa af Soomaaligaas meel de jacaylkiini baa qaldamay bay la too dilkii baa jacayl la idinka soo dhigay ani ninka waa jeclahay no farnabal dadka qaar farnabal baa yiraahdaa waxa weeye waa dadka aan farnabalka Soomaali wuxuu noqonayaa daciifka oo kala ah ee wax walba u daciifsan ee wax walba aan yani u dul qaadan karin ee u jilicsan I believe inay jiraan dadka qaar dad noocaas ah oo wax walba aan u dul qaadan karin oo awood noocaas lahayn especially gabdhaha aan ku soo korin waalidka hooyada iyo aabaha ee ku soo kora aayada ama silac iyo saxariirta she already dead way nooshahay boodigeeda nool laakiin maskaxdeeda abuse badan baa ka buuxa oo way dhimatay ma garatay oo way dhimatay
marka waxaa weeye waxaa samaysaan dumarka idinkuna ka daaya ragoo dhibaatada naagay adna walaal reer miyagaalnimadan lagugu iyo afarna bal baa la yiraahdaa waa run waxaa weeye dhibaatooyin fara badan caruuro badan oo rag iyo dumarba aad daciif ah oo waalid soo korsan baa jira because age of young age ka markii lagugu soo abuyuuso is different marka weynaanta lagugu abuyuuso weynaanta markii lagugu abuyuuso wax badan baa sarfaayfaysaa laakiin marka lagugu abuyuuso yaraanta 1 year 2 year 3 year under 10 markii lagugu abuyuuso waxaa tahay qof dhintay balse dhankii alla ka nool qalbiyan baad u dhimatay marka waxaan idin leeyahay dumaro waxaan idinkaga tegayaa walaalayaal